xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee degmada Laascaanood Cabdiraxmaan Khadar Maxamuud ayaa agab ciyaareed ku wareejiyay koox ku ciyaarta magaca dowladda hoose ee degmada Laascaanood kooxdaasi oo ka qayb galaysa ciyaaro ka socda garoonka Cabdi Bila Cabdi ee magaalada Laascaanood halkaas oo lagu ciyaarayo koobka Laascaanood Cup munaasabadii agabkan lagu wareejinayay kooxdan isla markaana lagu dhiirigelinayay ayaa waxa lagu qabtay dowladda hoose ee degmada Laascaanood waxaana xogayuhu uga mahad celiyay kooxdan ku ciyaaraysa sida wanaagsan ee ay isu diyaariyeen ugana qayb galayaan ciyaarahaasi kooxda ciyaartooyda ee dowladda hoose ee galabtana إن شاء الله كلهم كودوا قرية العيار دون كوحدة بشعص كوحات مقعوين كعيارسة دولة هوسة كعيارسة وإن كدونا تان كوحها كله رونهانتي الله أركاين معنا كوح دولة كسعتات هيدينه إن أخلاقيا يو سكس طبعا رونهانتي أسكالستان دي قرون كمان تشرفت على هذا كوحي دي قرية جروبة دي هراء يقول عيارين نقصوا بحين ciyaarta nadiif soo dhaxmartay rajeen doona insha Allah idinka kooxdina dhaxmarto marka xigta waxaan halkan uga mahad celinayaa maamulka dowladda hoose oo runaantii si weyn iyaguna u suxul qaamay oo maanta xoogayuuna gala joogo yara wanaagsan waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tahay adiga iyo mas'uuliyiinta kale degmadaba waxaan u mahad celinayaa maamulka dowladda hoose ee degmada oo ugu horeeyo maayarka degmada Cabdicasiis Xuseen iyo xogayaha dowladda hoose Cabdiqadar Maxamuud Faarax oo runtii kaalin weyn ka qaatay sanadkan gudihiisana ay tahay markii labaad oo ay kooxda kala qayb qaataan wixii taakula ah oo ay kooxdu u baahan tahay 3 bilood ka hor kooxdu waxa ay aaday safar ay ugu baxday galbeedka Somaliland xogayuhu iyo maamulka dowladda hoose waxay ka qayb qaateen safarkaas sidii kooxdu u aadi lahayd maantana waa ilaahay mahadii hadii aynu joogno 3 bilood kadib iyadoo kooxdu ay u diyaar garoobayso inay ka qayb gasho koobka ka socda garoonka Cabdi Bila Laascaanood oo maanta ay tahay kooxdu maalinkii koobaad ee ciyaarayso in ay halkan ugu wareejiyaan kooxda maamulka dowladda hoose ee degmadu oo halkan joogo xogayaha dowladda hoose ee degmadu in ay maanta aan halkan kaga gudoono ay nagu wareejiyaan agabkii lagu ciyaari lahaa galabta oo dhameystiran iyo koobku intuu socdayba oo ay ugu horeeyaan maaliyadihii la xidhanayay garoonka lagu galiyay ay ka mid yihiin sharabaadadii la xidhanayay ay ka mid yihiin kabihii banooniga lagu dheelayay iyo ay ka mid yihiin kubadihii ciyaarta degmada Laascaanood ee dowladda hoose dhiirigelintu u sameeyay xogayaha degmada iyo oo garab taagay xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Saalax waxaan leeyahay dhalinyarada degmada hadii mar walba aad garab istaagtaan dhalinyarada siyaasiyiinta waxtarkooda helaysan oo dukuna dhalinyaradii bariibaatiin xogayahana waan ku mahadinayaa Cabdiqaadir oo garab taagana waan ku mahadinayaa anu waxaan ciyaartoydii hore gobolka Sool de Chaniskaad maanta haysataan cid heshay ma jirto dowladda hoose anoo ah macalinka dowladda hoose magacayga waxa la dhahaa Absalaan Axmed Khaliif awalan waxaan mahad celinayaa maamulka dowladda hoose ugu horeeyo maayarka Cabdicasiis Xuseen iyo Cabdiqadar oo xogayaha maanta waxaan leenahay ciyaar aan la ciyaarayno dhiga kooxda Bishacas waa ilaahay mahadii haddaanu helay agabkii maanta oo nala guddoonsiyay inaanu mahad celiyo nimanka dhalinyarada ee hadda xusay sidoo kale marka aad baan ugu ku mahad celinayaa saad maanta noo garab istaagteen ugu dambeyn xogayaha dowladda hoose oo ku wareejiyay agabkaasi sporti kooxda ku ciyaaraysay magaca dowladda hoose ayaa ku dhiirigeliyay inay si wanaagsan uga qayb qaataan ciyaaraha ka socda garoonka Cabdi Bila Cabdi ee Laascaanood Cup magaca weyn ku ciyaaraya ee magacii degmada ku ciyaaraya ee tiimka dowladda hoose degmada Laascaanood ee halkan goobtan ku sugan aad iyo aad maanta ku mahad celinayaa guulo badanna waan idinka baranay hore oo aad soo hoyseen degmada u soo hoyseen magacii degmadana idinka xambaarsan oo ku ciyaaraya idinka wixii dhaliishii magaca soo gaadhana dawladda idinku keenteen ta idinka gaar ahaan idin soo gaadhana waa mid anagu aanu leenahay guushiinana waxa noo tahay waa farxadayada waayo mar rabno in la yiraahdo tiimkii dowladda hoose mar walba way feel garoobeen laakiin farxad bay noo tahay tiimkii dowladda hoose inay mar walba ka soo qayb galaan garoomada ay cagta soo galiyeen oo kubadda ka soo qayb galaan oo safar kasta la baxaya ay tagaan oo ka degmada lagu qabanayo iyo gobolkaba ay yimaadaan oo qayb ka yihiin oo walba iyagu hormuud ay ka yihiin runtii farxad weyn bay noo tahay waxaan doonayaa maanta halkan agabkan halka yaala
ee hortiina yaala oo agabka idinka la idinku talagalay idinkaan idinku wareejinaynaa maanta oo keliyatana ma ahee xilli kasta oo aad u baahataan dhiirigelintiina iyo wixii kale dowladda hoose uga baahataan maadaama aad magacii degmada idinku aad ku ciyaaraysaan dowladda hoose ayaa xaq u leh cid kastoo joogta in ay hawshiina fuliso doorkiinana idinkuna waad ka muuqateen annana doorkayga ka muuqano waa mas-uuliyadna saaran waan idinka mahadcelinaa runtii agabkan halka yaalla idinkaan idinku wareejinaa la wareega sidaad aragtaan waxaa ka muuqata waxaa ku qoran magacii degmada oo ku qorantahay maaliyadaha way ka muuqataa kolley sida lay sheegay tiimku galabta ciyaaraya wuxuuna ku beegan yahay tiimkii xaafadayda dee kaa raaci maaye waxaa leeyahay guushu bal labada dhandhankay raacda warta waa sugaya